بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وين ولا سلام بشرة الصوماليات بيلو بتشوكتان. maanta muxaadaradan waxay ku saabsan tahay Spanish Arbeit Market oo waxa weeyaan kusoo dhawo suuqa shaqada ee Swedishka. muxaadaradaasi waxay noqon doontaa wax si kooban oo dadku badanaa cusub ee soo gala Sweden si ula qabsan lahaayeen suuqa shaqada ee Sweden suu yahay qaabku yahay oo qaabku u shaqeeyo. dadka badanaa way ka yaraa qaldan tahay oo different baa kala dhexeeya ama way farqi weyn baa kala dhexeeya marka la eego suuqa shaqada dhulkeena iyo suuqa shaqada xaggan wax weyn baa kala dhexeeya. marka qofku inuu fahmo baa fiican farqiga u kala dhexeeya waa maxay iyo siduu ula qabsan lahaa dee suuqa shaqadu. Swedishka sida u fakiraan oo suuqa shaqadoodu u shaqeeyo hadday shirkadaha tahay dadka doonaya shaqo geeyaan hadday tahay matalan oo kale arbeidsmiddelinka oo kale dadka caawiya xagga shaqada ka caawiya. qof walba noloshiisa mar buu soo maray ama uu yahay arbeidslos wax loo bixiyo nin aan shaqo haysan oo shaqo raadinaya. marka muddo ku qaadata qofku inuu la qabsado suuqa shaqada Swedishka oo dee koowaad ka tahay qofku inuu afka barto weeyaan. labaadna waxayaan xirfadda waxaa qofku haysto. marka muhiimadda koowaad ee ugu muhiimsan waa afka, ta labaadna waa xirfadda. qofka dadkeenu bulshada Soomaaliyeed waxa fiican inay ka fahmaan taa wax fiican waxay qofku markuu xirfad haysto ahaato baabuur wadis ahaato dhaqataan iyo meeritaanka nadaafadda waxyaalaha sideedana ka shaqeeyo ahaato nin ka soo shaqeeyay mechanic ahaato xirfadaha gacanta ee badan Switzerland ahaato nin soo bartay wax weyn oo jaamacad ka soo baxay. Swedishku dadka xaggan ku dhashay badanaa nin leekaraa la helayaa ama heli kartaa dhalinyaradiisi markuu iskuulka dugsiga sare dhiganayay wuxuu ka shaqayn jiray hadduu doono seedare ama hadduu doono wuxuu ahaan jiray qof dukaan ka soo shaqeeyay dadkankaasi ama alaabta iibiya ama loo garayba ka soo shaqeeyay makhaasinta iyo alaabta la dhigo badeecadaha. kadibna intaas oo shaqeynaya haddana wax baranaya haddana jaamacadda dhigtay. jaamacadda markuu dhigtayna hadduu doono leekare ama injineer soo bartay oo ku shaqo raadistay. markaa CV-giisa marka la eego la akhriyo wuxuu soo maray intaasoo shaqaa laakiin badanaa kulley wuxuu qaadan doona muxaadarada siday tahay siduu qofku CV-ga marka lasoo hadal qaado sidee buu qofku CV-giisa nacamti uu eegi lahaa shaqada imika doonayo iyo waxaas oo aqoon haysto xirfad ama uu haysto karti inuu isku eego isu barbar dhigo oo isku xiriiriyo. taana way soo ku jirta kulley muxaadarada. muxaadarada waa gaabinaya kulley 10 mir bay noqon doontaa haddaynan ka badanba 10 mir. magacaygu waa Rashiid Jaamac kusoo dhawaada. markaa imkaa bilaabi doonaa bidnillaahi kariim. hur fungerar det egentligen suuqa Swedishku siduu u shaqeeya oo siduu siday nacamti tahay suuqa shaqadu. taa in fundering hur tror du företag rekryterar idag. shirkaduhu sidee bay maanta dadka u qaataan matalan är det så att de slänger sig på luren till arbetsförmedlingen. det adu culayska waxay saaran arbetsförmedlinka hadduu yahay ninka saaxiibul camalka ama saaxiibul shirkadda ee raadinaya nin shaqaala. det finns det andra vägar arbetsgivarna hyller väljer. mise dariiqo kale jira isagu qofka saaxiibul camalku oo maro och om du hade ett företag eget företag och skulle behöva anställa personal hur skulle du gå tillväga. hadday maanta aduu tahay qof shirkad haysta maxaad samayn lahayd ama sidee baad samayn lahayd ama dariiqaa mari lahayd. labadaas su-aalada ugu dambeeya labadaa marka la eego taa iyo taaba labadaasi macno bay leeyihin. macno waxa weeyaan
arbes giverana ama saaxiib camalku badana waa adigoo kale maanta adoo shirkadda haysta doonaya inay ka shaqaysid nin shaqaalaa waxa haysataa matalan oo kale dukaan baa haysataa adeegi waxaa ku iibisid waxa baahata nin shaqaalaa suudhku isla u fikiraan waxa weeyaan qofkii shaqaalaha uu degdeg ugu baahan yahay uu doonaya announcer buu sameynaya dacayd arbes mudiireenka arbes plus banking meesha lagu rido shaqooyinka dadka la raadinayo laakiin si kala jirta oo soo fikira arbes giver waxa weeyaan wuxuu doonayaa nin ku haboon shaqadan doonayo marka suudhku badan waxa eegaan u muhiima qofkan ma ku haboon yahay oo kartidii iyo personality-ga oo ah shakhsiyadiisu shaqada ma la qabsan kartaa marka labadaas oo muhiim ayada waxay personality-ga iyo competence-ka labadaba isku dhow yihiin oo iyadoo laftooduba ka maarmin arbes giver ama saaxiib camalku haddaan meel ka eegno waxay noqonaysaa oo si yaro basiita ama si yaro fudud aan ku sheego waxa weeyaan arbes giver maanta waxa jira wax loo bixiyo CV marka la qoro reference waxa weeyaan qof adiga ku yaqaana oo hore ugu shaqeysay ama macalinkaaga jaamacadda ama macalinkaaga dugsiga dadku waxaas ku qoraa badanaa reference-ka waa qof ku yaqaan reference waa marjac loo noqonayo oo telefoonkiisa loo qaraacayo CV-ga badan waa lagu qoraa taas wax matalaysa arbes giver markuu doonayo saaxiib camalku inuu adiga ka shaqaysiiyo wuxuu doonayo inuu garto saahan jirtay shaqadii hore see ka ahaan jirtay ma waxa tahay qof bulshaawiye dad kala shaqayn kara maxaa tahay hel iyal bisan ma tahay no graan oo de aduu daqiiq qof waqtiga xitaa tiidkay waxa ilaalinaya waqtiga marka qofkaas ku hubsanaya dhulkeena de qofkii waxa doonaya qof ka shaqeeya xaqana oo are cabdi ha igu yarda hebel way shaqaala u galaya arintii dhamaatay marka loo eegayo xagga barshunheedkii waxyaalaha laakiin xaggan u eegaan barshunheedka qofka barshunheed iyo competence-ka labadaaba way eegaan competence-kana waa awoodda qofka haysto wax walba noqoto waxa u gudbana hurriter fortogan mid arbetradog sleebay u helaan shirkadu og vilkan recruitering value tom helst طريقة ay iyadu laftoodu qofkan ugu shaqo geeyaan iska hita after har kumalite static ba imanaya oo de si aad ula qabsatid static waxa weeyaan marka meel laga eego si loo eego xisaabiyan safariya silay tahay shaqaalaha marka la qaadanayo kale silay shaqada u helaan ama qaabka u helaan shaqada ama dhinaca ka soo maraan kale waxa weeyaan 26 waxa weeyaan badana arbes secondary contact arbes giveran 5% 26 waxay arbes giveran contact la sameeyaan oo tay saaxiib camalka directly 25 daar arbes giveran contactor then arbes secondary 25 kiina arbes giver saaxiib camalka laftiisa ee contact la sameeya arbes secondary qofkan shaqada raadinaya ama shaqo laantu hayso asaga la xiriira qaabka la xiriirna waxa markuu taasoo announcer ka sameeyo email ku dirayo emailka marka dilku kula soo xiriiray okay 26 kale ee arbes secondary la ninka shaqo raadisku saaxiib camalka loo xiriirinayo waxa weeyaan telefoonada qaracaysa adigu laftaadu contact ba sameynaysaa dad ba la xiriiraysaa iyo meelo dad ba la kulmaysaa waxyaalo soo kale nacamti si shaqada u heshid weeyaan 20 via an horiga venner ila bikant taasana ugu muhiimsan 20 waxa weeyaan cilaaqado an horiga qaraaba saaxiibo bikant waxyaalo soo kale 13 daar u giftana soo kunas ma jiro nacamti qaab nacamti waadixa 8 waa via arbes mudilian arbes dad badan baa haysta arbes mudilianka inuu qofku ayna iyadu laftooda shaqada dadka geeyaan dadka dhibka haysto ka wuxuu kuna arbes mudilianka aanu ku jiraa asaga ay shaqo geenaya may asoo kuma shaqeyn geenayo oo dadka 8% buu shaqo geeyaa marka shirkadu la xiriiraan oo lahaan dadkaas recruiting baa jira dadkaas doonana markaas uu kula soo xiriiraya
laakiin badana waa adiga weyn qofka shaqada raadinaya qaabka u raadinaysidna kulley insha allah waan tusi doonaa marka boqolkiiba 6 vi annonser tidning och internet eller liknande boqolkiiba 6 inay galaan matalan oo kale jaraa'idka ama internetka ama waxa soo kale boqolkiiba 2 vi övriga kontakter waxyaalo kale oo ku duwan oo kontakt kale nacamta ku helaan shaqada static kale oo svenska narighet narig leaves hur hittar ni de medarbetare ni behöver marka waad aragtaan matalan wax la weydiiyay 8,000 iyo 366 marka statikuna hoos uu ku qoran yahay arbetsförmedlingenka 2002 bay qaar ka heleen spontant ansökan oo 20 iyo formella kontakta wala 65 marka hadda eegtaan 2004 ka afartii waxaad 65 8 36 2007 saddex konton koob iyo konton koob iyo 70 2010kiina 49 sideed konton iyo 870 marka hoosta hadda eegtaan waa ugu dambaysa informella contactor taasaa ugu badan taasna waxay ku muujinaysaa inay tahay badana xiriirka vi vet att 20% av alla jobb annonserar ut hur många är de dolda jobben då maanta boqolkiiba 20 baa lasoo dacayda lasoo bandhigayo dacayadaha lagu soo qoraa ama arbetsförmedlinka lasoo dhigaa kuwa kale way sideen nacamti qarsoon waa imsa malanaysa inay ahaato inta qarsoon shaqooyinka qarsoon macnaha shaqooyinkaan la soo dhigin oo qofku shaqada ka helo directly oo de magaranaysa la xiriiro arbetsgiveraha ama hebel la xiriiray anoo shirkad caliyo shirkad raadinayaba la xiriiray cusmaan baa u sheegay ku riyo cusmaan oo waxaan hayaa cabdi kala shaqada soo galo u shaqay cali wasaasoo kale haye marka waa imsa boqolkiiba 80 boqolkiiba 80 waa shaqooyinka intan aad aragtaan plus banka ku jira boqolkiiba 80 boqolkiiba 80 dadka shaqooyinka waxay ku xiraan wax xiriir oo contact weeyaan iyo cilaaqado bulshada marka waxyaalaha muhiimka dadku bulshada inuu dhex galo waa waxyaalaha dadku badan ka hadlaan suuqa shaqadooda asaasa waxay ku xiran tahay bulsho waxaana marka hore in sheegay waxa weeyaan ninka shirkadda leh wuxuu doonaya qof hubaal u yahay ninkan inuu yahay ninku raadinayo oo muhiim u yahay saan waqti lacag baa kaga baxaysaa ninkan shaqada saaxiibul camalka lacag baa kaga baxaysaa waqtigan la dayacayo ama qofkan laftiisu booska baneeyo marka la eego la arko inuu aanu habooneen waqti bay ku qaadanaysaa inuu haddana mar labaad helo ninkii laftiisa ku haboon marka waqtiga dayacii ka dayacmaya buu isagu u soo gaabinaya inuu reference raadiyo ninkan iga hubtaa waan ka huba waayahay om vi vänder bådet då vad gör du som är smart dadka kale aragtaana socdaa waa boqolkiiba 20 om alla fattas om 20% av jobbet dee iminka dadkuna waxay ku cararayaan 20%ka ee balkii balasbanka ku jira balasbanku waa meesha laga raadiyo arbetsförmedlinka marka gashida ku leedahay waxa raadin isteedare waxa raadinaya khofeer waxa taxi khofeer waxa raadinaya laarar waxa raadinaya mudish mulaar waxa raadinaya maxaan ku raacay kare waxa raadinaya nooc walba ahaato xagga ka raadin oo xagga soo qorso oo shaqooyin way shaqooyin kale isla loo helaa waka boqolkiiba 20 wixii tagay dadka badankoodu xagga qofka smart markaa muxuu sameeyaa boqolkiiba 80 baa ku yeelatay boqolkiiba 80 qaabka uu raadinaysa waa maxay markaa big audit network waa cilaaqadaha weeyaan oo ka naarvaarana oo ka din miiloheed waxa weeyaan adiga laftaadu ninka adigu matalan kale waxa tahay ninka dhexda taagan
haddaad adu aanan dadkaasoo dhan ku xidhnayn shaqo ma helaysid way adag tahay ilaahay baa shaqada bixiyee laakiin samada shaqa kaagama imanayso iscaya cabd waana saca macka macnaha waa dhaqaaq annagoo kula dhaqaaqaya marka waxa weeyaan xiriirka waxa la xidhiidhay hebel 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 baa weydiisay hebelna hebel buu ku weydiiyey hebelna hebel buu ku weydiiyey dadka garanaysid weeyaan marka dadka garanaysid waa maxay dadkeena bulshada soomaalidu badana soomaalin bay ku xiran tahay waa intaa way soo gaaban tahay magaranaysaa circlekeena daa'iradeenu way xiran tahay waa meel gaaban oo xiran suurishka laakiin qofka suurishka dhaladka xagga ku dhashay aabbay hooyo buu leeyahay abti buu leeyahay uu jooga daris buu leeyahay inankaa ardayga matalan oo kale dhex arday ka soo qaadan waa inan ardaya weeyaan thomas baa la yaraha thomas wuxuu doonaya inuu shaqo raadiyo wuxuu la xiriiraya hooyadii wuxuu kuna hooyo shaqaba doonaya iyo aabihii iyo hooyadii waxay la xiriiri doonaan dariska iyo adeerkii abtigii gabadha waxay la xiriiraysaa gabdhahay la shaqayso matalan saasoo kale markaasay daaladdu weynaanaysaa oo waranaysa inankaygii thomas waa bilaa shaqo ii raadiya kuwa kalena matalan oo kale adeerkii ama awowgii wuxuu sii weydiinaya qof kale arrintu waa sii soconaysaa way sii gudbaysaa marka si yar fudud buu helaya thomas laakiin haddaan raahno imika soo qaad matalan oo kale qof shakhsi oo annaga naga mid ah inta ku xirannahay waxa weeyaan geed yaroo meel yaro go-doona dee oo magaranaysa xiriirkeenu waa dadka bulshadeenu weeyaan qofku marka bulshadeenu ku xiran yahayna dee shaqooyinka laga helo bulshadeena waa ogtihiin il keliyata wax ku eegna marka ilkaa keliyata waa meel keliyata baa wala cararnaa u wala kalaana marka way yaraanaysaa waa soo koobnaanaysaa laakiin qofku markuu bulshada dhex galo xiriirka badiyo contactka badiyo waxay ahaanaysaa inuu helo shaqo weliba dadka xirfadda le baan ka hadlaya dadka xirfadda haysta waa u muhiim badanaa inuu contact sameeyo oo dadka la xiriiro mid kalea jirta qofku shaqadii hore uu ka shaqayn jiray badana dadku la shaqayn jiray berigii hore hadduu doono 2005 dadku la shaqayn jiray inuu ka go' maaha ama 2010 dadku la shaqayn jiray oo shirkadu kula shaqayn jiray inuu ka go' maaha waa xiriir uu ku caawin karaa inankaa uu caawin karaa markuu jaamacadda ama dhiganayo ama jaamacad dhameeyo marka waa xiriir waa hebel shaqo waxaa weydiinaysaa erekonio tafatu qala cid baa qoranaysa inankayga waa bilaa shaqo waxaasuu yaqaana ka waran cid ma garanaysa uu shaqaysiinaya marka qaab shaqadu saas oo timaada borinu et instructor network big ande inom at kartlega alt inaad adigu laftaadu xisaabisid from familiar select of vendor oo kuleega oo vacant tilshayna iyo reception waxay ku leeyahay familiga select iyo qaraabada saaxiibada shaqada beriga hore vacant shayna iyo reception inanta fadhida jiimka marka qofku biraha qaadayo xiriirka saawi sooka opdom iyo dom network do vault oo ku jira in profile taasna waxa weeyaan adigu laftaadu bal xisaabi bal waxa sameeysaa warqad soo qaad cad oo adigu laftaadu ku qor magacaaga oo eeg inta taqaanid oo soo saar bal adigu laftaadu networkaaga ama shabakadaada cilaaqadaha xiriirka waa ayo intee weeyaan markaas leeba shaqada u helaysa adiga laftaada markaas isku jawaabta helaya var victim for arbeidsgiver maxaa muhiim arbeidsgiver arbeidsgiver waxa muhiima oo asaga muhiim oo sar sheegna marka hore competence waxa ay soo fiican tahay laakiin reference kana ay loobina taa kelmadda reference waxa weeyaan boqolkiiba reference waa muhiim oo ta ugu dambaysa qofkaasi qof hubaalmay shaqada u qalma qof la qaraacay reference qof loo noqon karo CV-ga marka la qorayo lagu qoraa reference competence waa kartida qofka kartidiisa wuxuu doonaya arbeidsgiver nin karti leh oo nin oo ka soo bixi kara hawsha bulshooyinkeed oo nin shakhsiyadiisu fiican tahay oo waxyaalo badan ku jirto yalbsamka dadku caawiya nugraan waxyaalo badan oo la soo koobi kareen magarata oo shakhsiyadda qofka ku qoran taana bulsho briefku qofka ku qoraa suurisku waxay qoraan wax loo bixiyo CV bulshon brief kulay cashar kala ku soo qaadan doona CV-ga soo loo qoro iyo bulshon brief ka soo loo qoro iyo muhiimaddu tahay bulshon liga heedka uu yahay oo faa'iido u tahay arbeidsgiver
qofku yaabaya wuxuu leeyahay inuu dhulkeena ma jirto waxani muxuu yahay barshuun lageed qofka markuu shaqaysiinaysid ma inan baad siinaysaa marka ku leedahay shakhsiyadaada iga waran laakiin xaggan waa saa weeyaan wuxuu doonayo garto maxaad aduu shakhsiyadaadu sile tahay si bani aadan ahaan silabaad wax u shaqaysaa qof casabiya toolamuud aan ahayn oo isdejin karayn haddaan ahayn ma garatay qof aan active ahayn qof aan social ahayn oo dadka dhex gelin oo xiran arbesi group la shaqayn kara ama keligii shaqayn kara marmar waxaa jira shaqooyin keligaa khalf standard keligaa ma shaqayn kartaa waxaa jira wax kale oo kunuskaabka iyo tan weeyaan kunuskaabka iyo earphone heat kunuskaabka waxay aqoontaada iyo earphone heatkana waxa weeyaan khibradda haysatid marka taasina waxa weeyaan waxa ku qoraysa CV-gaaga kunuskaabka aqoontaada waa maxay maxaa soo dhigatay CV-ga waa kule cashirka CV-ga ku tusi doona waxa weeyaan kunuskaabku waxa weeyaan kunuskaabar oo waxyaalo badan soo qoraysa adu maxaa ama utbuilding oo kale ka soo qaadba utbuilding waxyaalaha soo qaadatay tacliimta darajadaha soo qaadatay kunuskaabkaaga waxyaalaha shahaadadaha sidatid competence-ka sidatid luqadaha iyo farhiidka dhowr meelood baa kasoo shaqaysay qofku CV-ga inuu ku qoro muddada intaa xaggaasaan kasoo shaqeey muddada intaa xaggaasaan kasoo shaqeey muddada intaa xaggaas wax shaqooyinka soo qabato kale mutafaquuna waxa weeyaan dee dhiirigelinta aad u haysatid wax dhiirigelinta fortog ananseer uj yob boosina eegna hamsiidu kolley hamsiidu buu leeyahay arbes giver walba oo soo xaysiiya shaqo bannaan wuxuu leeyahay website soo u gaara oo la geli karo waa eegi karta waa daawan karta maxaad ku qoran Vanligtvis heter du dessa jobb under vilken jobb hos oss eller om oss och på så sätt använder företaget sin hemsida för att fånga upp de kandidater som är redan intresserade av deras företag. Många gånger hittar du inte dessa jobb på Platsbanken eller andra jobbsajter. Lord Chirban Helen waxa oo ka heli karin maxaan ku dhahay Platsbanken waa kii aan u ka hadlay waxa weeyaan arbisa midilka MCD-sa marka la gelayo Platsbanken waa meesha lagu qoro shaqooyinka laakiin dariiqo badan baa jira lagu helo shaqooyinka ta tid att leta efter dessa jobb även om branschen inte är in som du primärt här tänker på så behöver kanske din kompetens ändå oo baahantay kulley kartidaada mar walba qofka smartkuna albaabtu ka xirma albaab kale la furaa albaab labaadna uu xirma saddexaad la furaa laakiin qofku markuu laho albaab kale tuu bay furan ka weyn tuu xirmana waa ka xirmatay body founder redan nu imka waa ka fikir bayna bar all data for day och ditt sätt att söka jobb tartan baa lagu jira suuqa shaqada marka waa aragtaa dadka tartamaya hålla fast vid den tänkan inom hela bilden saan u eg sawirka tartan baa lagu jira marka maxaa adaya dad kale ka dhiriirsiin doonta weey soo dukaasha tanka ina fikirti weeyaan tanka nit si kala cusub justera oo de isnidaamisi ambasa oo inaad adigu laftaadu la qabsoomsid ama la qabsatid ama isku diyaarisid farkoma u yaro analunda wax isbedela meer af något och mindre av annat طريقه وكا كورتاغن xaaji ugu fakraya wuxuu leeyahay xagaan mara xagaan taga hawshu way badan tahay laakiin qofka nacabti kalsooni leh karti leh oo ku kalsooni ka qaba naftiisa iyo aqoontu haysto kulley isla in sheego weyn albaabkooda daduu xirmo kalabaad buu galaya kas labaad daduu galo saddexaad daduu xirmo afraad daduu xirmo shanaad saas uu soconaya waxaan u nimid kan Erkis profile iyo arbes platsan analyst Erkis profile waxa weyn inuu isku xidid weyn waa adiga weyn stirkurka waxa weyn meelaha awoodda aad leedahay awoodda ku leedahay iyo magarata boof waxdo iyo boofka مثلا arbes platskan iyo adigu waa isku xiraysa macnahan maanta waxa la soo qoray shaqo banaan oo ah
til example kasoo qaadba waxa tiraahdaa shaqada badana dadku bulshadu way ka xanaaqaan laakiin shaqo ceeb ma leh til example state leh local border battery waxa tiri niyow maxay u baahan yihiin waxaas way soo qorayaan iyadu kulley arbes giver wuxuu soo qoraya waxyaalaha ku saabsan shaqada wuxuu soo qoraya buhoofka si loogu baahan yahay anaska mool oo dee rabitaanka iyadu doonaya qofka doonaya waa maxay arbes gifterka shaqada la qaban doono ifon heatka khibradda competenceka kartida routiinka meesha shaqada kunuskahabka xirfadda loo rabo iyo milyooga siduu shaqadu yahay marka waxaa ku xiri doontaa erkis profilekaaga adiga marka xagga waxaan ka tusayaa wax loo bixiyo cv-gaaga waxaa ku xiraysa au habeen doontaa qaab ku saabsan arbes platska ama arbes givera wuxuu doonayo siduu qaabka iyo bulshun brevekaaga laftiisa xitaa labadaba isku xiranaysa waa isku xiriirinaysa ma macnahaan waad kala eeganaysaa marka marka qoraysid kolley waa iman doona cv-ga bulshun breveka meelo baa jira boontiyaal baa jira qofku ku buuxinayo uu kusoo jiidan karo maxaan ku lahaa waa in iibgeysid adigu xirfad kartidaada iyo waxa taqaanida in iibgeysid weyn arbes giverahan maxaad ama saaxiib camalka sidee baad ugu iibgeynaysaa ama uga iibin karta waxan oo kale oo dee adiga laftaada boqol baa soo codsanaya boqolkaas t v sidee buu adiga kaa soo dhex saara walaa hawniyo ninkan waa ninkii habboonaa weeyaan waa wax soo jiiditaan la yidhaaho oo qofka soo jiidanaya marka waa inaad labadaaba isku xiriirsid sida matala farmooga waxa weeyaan farmoogaha waxa weeyaan awooddaada shaqo kunuskahabkaaga oo de aqoonta iyo competenceka iyo earphoneka khibradda haysatid iyo bulshun heatka laftiisa isagana marka bulshun brefka qoraysid waan inaad u habaysid qaab isku xireen labadaa meelood meesha shaqada iyo adiga waa ina cobla aad samaysid isku xidhid macnaha xiriirka muxuu imanayaa inaad adigu laftaadu tan arbes giver doonayo waa ina taada adiga laftaada ku buuxisid waana shuruudo weeyaan marka arbes giver uu soo qorqoray waa shuruudaha leeyahay qofkan baan rabaa anugu marka haddaad iska si dhex weydid ma hadda inay tahay shaqada aanu ma heli karo may waana laftaada adigu ambasa samaysid ambasa nacamtii aad nooc waxay noqon tafsoo inay isku diyaarisid ama isku habaysid si aad u noqotid shakhsigaa raba shakhsigaa rabo arbes giveru way dhammaatay muxaadarad maanta waana rashiid jaamaca aad iyo aad baan salaamay kolley waxaanu khibrad ama earphone heatka aan ka aqaano arbes marketka ama suuqa shaqada suudishka baan ii soo gudbiyey casharadana waa casharo oo dadkeena kolley soo galay muddo dhaweyd ama dadka laftooda shaqaraadiska silay u fahmaan ama u arkaan si waadaxa